السلام عليكم. maanta waxaan sameynaynaa burger ama burger hamburger waxaad rabtid. waxaa loo isticmaalaa rootigan saas uu egyahay dukaankaa laga helaa. salar iyo qajaar. cheesekan cheddar cheese aan lahaa. cheese walbaad isticmaali kartaa laakiin cheddar cheeseku aad ugu macaan yahay. marka basal ku jarjaraya oo ku walaaqaya hilibka. waxa waaye hilib shishiid duqad. marka krayda ama seasoningka aan isticmaalayo waa kuwan. waxa waaye curry, waxa waaye paprika, waxa waaye cinnamon aad u yareynaysaa laakiin sida wax yar macaankaas u lahaado. Italian spices, white pepper ama black pepper. basbaas walba haddaa isticmaali kartaa. haddaadan basbaas jecleenaha isticmaalin. curcuma, turmeric ama root, xawaash waxyar lagu daraysaa. Maggi kan chicken aa lagu talagalay laakiin wuu macaan yahay marka waa iska isticmaali kartaa. salt iyo intaas. basashan waa ku jarjaraa. basashan aan ku jarjaraa marka waa ku qasaya. marka waa arkaysin sidaan u jarjaro oo isku qaso wax walba. okay marka hilib shishiidka waa qasay. basalaa ku jirjiro. markaad waxaad samaysid kanaa dhiganaysaa sidaad ku safi kartid burgerayaasha aad samaynaysid. aniga kuna isticmaalaa siday kulligood isku mid ahaadaan. hilib shishiida halkan geliyaa. markaan hilib shishiid geliyo aan kan kusii riixaa siday maxaa lahaa u noqdaan flat. marka waa in tusaa sidaan u sameeyo insha allah. marka halka waa ku safay. waxay noqdeen 13 noqdeen. marka in yaraa u daynaysaa. markaad halkan ku saftid kana saaraysaa sidayn u qalalin. markaad u daysid way si fiican u adeegay noqonaysaa. mida kale spices yaasha aan hadda ku dardarnay maxaa lahaa way isbaranayaan. kaka yasaas. okay markan saasa u daynaysaa. marka u soo noqonayna insha allah. hadda waxaan sii sameynayaa waxa la yidhaha nafaqo. anaa nafaqo aqaan. waxa waaye baradho oo la jarjaray la karkariyey. markaad karkarisid waa waxaa ka dhigaysaa jilaac or waad yaryareynaysaa. markaas waxaa ku dhigaysaa ukun kadibna waa shiilaysaa. marka hadda waa jarjarayaa baradhadan hadda i horyaal.
marka inta baradhada noo kasii karsamaayo waxaa siin jarjaranaynaa chickenka iyo paprika iyo basasha sidaan u samaysano spring rolls ama lumpias sidaas oo egyihiin halkana sawirka xataa ka arki kartaa marka waa jarjaraynaa si yaryara u jarjaraynaa chickenka waa sii dhaqay halkana isku keenaynaa insha allah okay digaagii waa kariyay paprikaagii ku jarjarayna wuu ku jiraa marka waxaan sameynaynaa waan kula laabaynaa sida loo laabana waa idin tusayaa xabadkaana kasoo bixinaysaa waxaad rabtid ku darsan kartaa hadaa rabtid hilib shishiida ku darsan kartaa hadaa rabtid malaay waxaad rabtid ka buuxin kartaa okay marka saasaa loo dhigaa waxaana soo qabsanaysaa aad kuridid sida markaad la laabtid marka ugu dambeysa biyaha meesha ka marinaysaa oo sida u dhig isku dhigo okay marka kulligood waa la laab sidaad u aragtiin midka ugu dambeysa ii haray marka ugu dambeysa in tusaa si loo sameeyo okay saas ka dhahayaa maadaama kan ugu dambeysa tahay waa hagaajinaysaa hadda ma is kor saarin waa is agdhiga laakiin meesha qalalan aan kan kale ku saaray marka meeshaan halkan qoyan saasa u saaraa maadaama adig kale way isku dhigayaan ma aragtaa hadii way kala fufuran yihiin laakiin saas u dhig lahaa way isku dhiganaan lahaayeen marka saasi ku dhamaatay okay marka baradhada way qabowday hadda waxaan sameynaynaa waa jajabinaynaa fargeetaa ku jajabinaynaa markaan fargeeto ku jajabino banooni ka dhigaynaa saasaa dhahaynaa marka ukunta waxaa usoo qaaday sidaan markaa banooniyaasha yaryar sameyno ukuntaa ku ridaynaa kadib kanaa ku ridaynaa waa bread crumbs paneer meal qaracay ka dhigaysaa lawa siyaa loo sameyn karaa aniga sidaana u sameynaa sida kalena waxaa waaye inaad bur iyo biyo isku qastid oo aad ka korsaatid labadaba waa ku sameyn kartaa aniga laakiin hadda saasa sameynaa
intaan saarin butter dabka marinayna siday barootiyaasha madow ka noqdaan ama guduud ka noqdaan madow ma la rabo madow waa gubasho marka waa marinaya kadib barootiyaasha ayagoo okay marka rootiga waan sameynay haddana burgerka sameynaa saliid iyo butter aan sameeyaa siday because butterka si dhaqso ay gubataa saliid haddaad ku mix garaysidna ugaadi labada banaana xildeedkana aad samee okay marka dabka hamburgerka saartid oo waxaa fiican inaa halkan hal mar saartid haddaadan haysanina waa okay laakiin ana waxaa jeclaa inaa halka saaro oo cheese ku kor saar asagoo kulul cheeskana ku dalaalo saas hal mar saaraayo